بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دالك دينتا ددك إيه دولة نمدبا إلهي سبحانه وتعالى هينو بدبادي مينيابوليس waxaa ka socda cunsurinimo qaawan oo loola bareeray ummadda Soomaaliyeed. dadka Soomaaliyeed ee degan City of Minneapolis kama hadlayo Twin Cities, City of Minneapolis waa ilaa 80,000 oo qof, 56 ilaa 80 bay yiraahdeen. inta badanna waa yareeyaan, marar badanna Soomaalidu ismaba register garayso. Therefore dadku inta waa ka badan yahay. waa dad muuqda. cityga dadka deganna waxaa lagu qiyaasay 429,000. maxay ka yihiin marka? boqolkii qofba 18 qof baa Soomaali ah. macnaheedu maxay tahay? boqolkiiba 18 waa dad aad u badan. waxay ahayd marka maamulka iyo leadershipka City of Minneapolis inay intaa kaga muuqdaan oo boqolkiiba 20 ay ka muuqdaan. 10kii qof oo madax ah inay labo Soomaali ahaatay ahay. maxaa dhacday? waxaa mayor ka noqday 2 jeer oo isku xigta nin la yiraahdo Jacob Frey. Jacob Frey 3 jeer baa la doortay. 2 jeer oo ugu dambeysay mayor buu ahaa, marna city councilor buu ahaa. markasta wuxuu ku soo baxay codka Soomaalida. kii ugu dambeeyay 2021 wuxuu ku soo baxay boqolkiiba 20 codka uu helay Soomaali bay ahaa. haddaba ninka ay Soomaalidu sidaa u maalgashatay, isagu muxuu Soomaali ku maalgashaday? waa marka koowaade 30 qof oo isagu uu appoint gareeyo magacaabo. hal qof oo kamid ah Soomaali maaha. waa madaxda departmentska, directorska waaweyn, kulli hal qof oo kamid ah Soomaali maaha. macnaheedu maxay tahay? 5 qof ilaa 6 qof oo ay xaq u lahaayeen 30ka qof inay ka mid noqdaan baa kaga maqan Jacob Frey. macnaheedu waxa weeye waa nin cadow ku ah Soomaalida iyo horumarkeeda. macnaheedu waxa weeye waa nin aan rabin inay Soomaalidu ka kacdo meesha ay taagan tahay. Jacob Frey wuxuu ka hor yimi marka koowaad muslimiinta oo dhan arrin khusaysa oo ah resolution City of Minneapolis ay soo saartay oo ay ku cambaaraynayso ama ay ku dalbanayso degdeg in loo joojiyo dagaalka iyo bombardmentiga ama duqaynta lagu wado dadka reer Gaza January 25, 2024. waa last year. waxaa codeeyay city council 9 qof ah. city council kuwa 13 qof. 9 waxay isku raacday arrintaas resolutionkaas. 3na waa ka hortimi, waa diiday. qofna waa ka aamusay. iyadoo saas ah ayuu veto saaray. Jacob Frey waa nin Yahuuda. Yahuudna wuxuu ka yahay Zionist. magaalada Yahuuda degan dhammaantood marka la isku daro Minneapolis waa 40,000 iyo number ka yar. 40,000 ugu yaraan boqolkiiba 60 ama 70 ma aha Zionist. wayna ka soo horjeedaan xoogaaga Zionistaha ah oo ninka la yiraahdo Netanyahu taageersan oo aadka u yar lacagna haysta ayuu ninkaanu ku qolay yahay, kana doortay dadka kale oo arrintan ay khusayso oo dhan. ogaada Soomaalida kaliya ka badan Yahuuda 2 jeer. waa Yahuud oo dhan oo la isku daray. iska daa markii Zionist la yiraahdo. Zionist waa number aad u yar. waa dadka aan raaliga ka ah xasuuqa ka dhacaya Falastiin iyo Gaza oo Netanyahu iyo dawladdiisa beesha caalamku ay ku xukuntay inay yihiin apartheid ama midab kala sooc. ay ku xukuntay inay yihiin xasuuq wadaan oo genocide ay wadaan. ay ku xukuntay inay yihiin war criminals isaga iyo wasiirkiisii hore difaaca. dawladda iyada ah buu Jacob Frey taageersan yahay. dadka yar oo tirada yar buuna ka doortay dadka muslimiinta ah ee degan magaalada Minneapolis oo dhan. dadka Minneapolis degan oo muslimiinta ah waxay ka badan yihiin 200,000. wuxuu ka doortay dad dhowr kuna ama dhowr iyo 10 kuna oo Zionist ah buu ka doortay. hadda ogaada Jewishka intooda badan waa ka soo horjeedaan, waxayna ka safan yihiin dhanka kale. intaa ka soo gudub Soomaalidu waxay keensatay resolution ay wadeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo Jamaal Cusmaani ay ka mid yihiin
oo ahaa in Soomaalida si cadaalada oo ula dhaqmo Uber iyo Lyft. Uber wiil yaro isaga reerkiisa aba iska leh waxaa la soo dhigay codkii baa la soo dhigay wuu baasay veto saar halkaasna xabad buu Soomaalida isha bidix kaga dhuftay waxaa ku xigta inuu ka soo horjeedo in kirada la raqiisiyo dadka Soomaaliyeedna 80% kiray degan yihiin kirada in la raqiisiyo ka soo horjeedo oo kambaniyada iska leh kirada ay lacag ku shubtaan waxa uu rays gareeyay lacagtii ugu badnayd 4 jeer buu ka lacag badan yahay Umar Faatax oo isaga la tartamaya waxa soo dhan isku soo duudo waxa soo baxay wiilka dhalinyarada Umar Faatax la yiraahdo oo ku dhashay dalka Mareykanka wax ku bartay dadaalay hadda senator min state level senator aad u dadaalay articulate furfuran oo nin loo jeedo macruuf inuu wax noqon doono oo hadeer buu ninka isaga ahi uu dul maray ninkii 3 jeer soo fadhiyay city councilka iyo mayorka saas uu dul maray 44% ayuu ku guuleystay codkii conventionka DFL ama dimuqraadiga conventionkoodi ku guuleystay maxaa dhacday endorsementkii buu banaanka ka qaatay waa la siiyay waa loo fariistay group lacag haysta oo Zionistayaashaas oo ninkan maal gashaday ayaa buuq kiciyay dhowr iyo 20 qof baa intay fariisteen endorsementkii ururka oo dhan u bixiyay oo ilaa 800 oo qof ay ka codaysay oo qof walba uu matalayay 5 xaafadood matalayay ay ka codaysay la noqday oo yiraahday waa kala noqday waa markii ugu horeysay ay dhacdo ciday ku dhacday ay tahay waa Soomaali waxay Soomaalida in dhulku gariiro oo ay dibadda u soo wada baxaan ilaa dib loo soo celiyana ay banaanka taagnaadaan waxay kala ahayd inay intay kulligood masaajidada iyo meel kasta ka hadlaan ururada Soomaaliyeed iyo masaajidada iyo hay'adaha cid kasta oo Soomaaliya qalin iyo tiim bara haysata oo looga warqad leh haysata inay soo saarto bayaan cambaarayna oo lagu cambaaraynay DFL in loogu hanjabo codka yaga they took it for granted our votes the Democrats took our votes for granted that's not going to happen anymore ma soconayso waxaan marka rabaa inaan ka hadlo maadaama ninkaas uu ninka yahay adduunkuna isu bareeray maantana Israa'iil ay marayso wadamadii adduunka ugu waaweynaayo gacanta ku hayn jiray inay ku kaliyooday America oo dawladda kaliya hada waa dawladda waxaad arkaysaan sanataradii iyo representativeski oo aan imaan karin constituency-gooda aan soo hor istaagi karin oo lagu buuqayo lagu qaylinayo kuwii taageersanaa IPAC mar dhow waxaa laga mamnuuci doonaa inay lacag ku bixiso electionka wadanka maxaa yeelay waxaa loo aqoonsan doonaa inay tahay foreign agency inayna isregister gareeyaan as a foreign agency like everyone else Canada waxay maraysaa inay tiri prime ministerka Israa'iil haddii uu yimaado waa la xiraya waxaana u dhiibaynaa maxkamadda adduunka Ingiriiska xiraya Faransiiska xiraya Spain baa xiraysa Norway baa xiraysa Irish ka xiraya intaasoo wadan oo aan waligood Israa'iil ka hadlin oo 100% taageersanaa oo markii laga hadlaba dhihi jiray Israel has a right to self defense ayadoo dambiila waliba oo iyadoo dadka leeynaysa dhihi jiray baa banaanka taagan maanta ay saas tahay midka ama wadaadka ama wadaad oo ekaha ama Soomaaliga oo dhahaya muslim baan ahay oo Jacob Frey garab ordaya oo ama Kenya dadka intuu soo hor istaajiyo la dance gareynaya ama masaajidada Kenya shame on you waxaan xishoonayn baa tahay diintaadii baadan ka fakarayn akhlaaqdaadii baadan ka fakarayn sharaftaadii cirdigaagii Soomaaliyeed iyo kii islaamnimo baad xoogaa lacag siisatay ceeb عليك ma sheegayo magacyo maanta laakiin waxaan sheegayaa Jacob Frey waxaan leeyahay Mr. Jacob listen you can call yourself Yaqub or whatever you can tell us that you love sambusa and sidee tahay and few words from Somali language but that is not what can vindicate you today you can talk the talk
but you need and must walk the walk. When you had the power, you showed us that you care less about the Somali community. Now, we're telling you, enough is enough. The Somali community is very peaceful community. Very, really lenient community. They gave you a chance and a third one. And more than that, it's unacceptable. You need to look for somewhere else and for some other demographics. Not us. Not now. Not now. waxaan leeyahay kuwa la socda ka xishooda ummadda ka xishooda sharaftiina ilaaliya caruurtiina ka xishooda dadka odayaasha waxaan leeyahay iyo haweenka iyo dhalinyarada wiilkaasu markuu ku muuqdo ha ku muuqdo wiilkaagu dhalinyarada ayuu wuxuu yahay role model ku dayashay u tahay markuu ku guuleysto city of Minneapolis way isbedelaysaa muuqaalkeedu waxaan akhriyay 27 qof oo cabinetka waa Jacob Frey. None of them is Somali. That's not going to happen. haddii uu ku guuleysto Umar Faatax 4 5 6 intay xaq u leeyihiin fair proportions ama percentage oo ay xaq u leeyihiin bay ka helayaan markay ugu yaraadaan isaguna madaxdooda dul fadhida way wax badan oo sharciyadiina ah oo sharaftiina ah oo diintiina ah baa laga baasin doonaa city of Minneapolis. It's your city. You're not going anywhere. caruurtiina u baneeya wado booliisku inuu caruurtiina ka shaqeeyo way inay ka badbaadaan dhimashada law enforcementiga iyo maxkamaduhu waa inaysan caruurtiina ka shaqaysan oo aysan commodity u noqon ee ay u noqdaan kuwa iyagu badbaadinaya oo tababaraya oo hormuudka u noqonaya. Chief of police waa inaad heshaan mayor waa inaad heshaan city managers tira badan waa inaad heshaan directors badan waa inaad heshaan dad xoog leh baa tihiin xoogiinu haydin muuqdo dhulku ha gariiro dibadda u soo baxa culimada waxaan leeyahay hal la arko bayaanaad soo saaraysaan oo ku cambaaraynaysan endorsementigaas lala noqday sababta loola noqday wax kale maaha waxaa la rabaa in loo sheego raayul caamka inaad tihiin fraud community tuuga ah oo si tuuga ah ku helay endorsementiga idinma qabato arrintaasi ceeb wey waa fadeexad anoo intaa idin jiro idinka fog bay dhibaysaa qof kastoo Soomaaliya dhibaysaa hana ceebaynina walaalayaal soo baxa ummadana hoggaan u noqda wadaado dadka gadaal ka marinina hormara bayaana soo saara sharaftiina difaacda masaajid walba khudbooyinka soo socda waa in laga akhriyaa dadkana loo sheegaa 19 bisha inay early voting galaan una codeeyaan wiilkooda midda kale kulligiin fundraising oo aqida meel kasto idin kamida qof kasto Soomaaliya adu lacag bixiyo Jacob Frey lacagta ay ku soo shubeen Zionistaha iyo IPAC lacag ka badan baad bixin kartaan dad taajiraatihiin haydin muuqato awoodiin oo karaamadiina arka oo Soomaali waxaad u noqotaan sharaf u noqday hormuud Soomaali u noqda insha Allah taala hadda maanta intaasaan oranayaa magacyo ma sheegayo kuwa hor ordaya Jacob Frey oo dadka hor keenaya iyaga isku xishoon doona markay arkaan maas dhaqaaqay markay arkaan waxa tiraadaan not today Mr. Frey not today not anymore waa dhamaatay sheekadaas khayr badan baa idin rajaynaya billahi tawfiiq salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh